كل سو دواada asxaabta sharafta leh yani inta aynan guda gelin sidee u aragtaa casharadan waxa la yiraahdo aynu ka dhigno channelkan bara media iyo bara academy ama guud ahaanba forex ardayda channelkan sidee u arkaa suuqa sarifka lacagaha saare iyo faa'iido wax aqoontoodu halka ay gaarsiisay waxyaabahaas oo dhan iyo caqabadaha ardayda caqabaduhu haystaan iyo waxyaabaha ay tahay inaynu ka caawino ka fiirino marka qof kasta oo halkan ka hadlaya waxa la yiraahdo video soo gelin doona YouTube qofkii marka aan raali ka ahayn uu ka aamusi karaa okay dhib ma leh okay sidii ma guda galaa marka okay waxa la yiraahdo waxaan la hadlayaa ugaas bare gudagal okay ustadii horta waa maasan tahay waan kaaga mahad celinaa sida hufan aad markasta ardayda aad u garab qabanayso ilaahay ha ka abaal mariyo intaas kadib horta suuqan marka laga hadlayo waxaa jiro waxyaabo badan oo qofka ka caawinayo marka koow waa inuu leeyahay maskax fiyow iyo cilmi saxan haddii uu qofkan haayo waxaan aaminsanahay in uusan suuqan uusan ay sheegay sabab ay ugu adkaato inaysan meesha uun laakiin dadku waa isku mid ma noqonayso qofkay ku adkaan kartaa anoo markaas xaggaadan ka fiiriyo marka mar haddii aad cilmi saxan hesho adiguna aad horuuso cad tahay suuqu ma adko guula taaban karana waad ka gaari kartaa waa sidaan aaminsana aniga absalaan aan su'aal ku weydiiyo ogaaso goorma ayaad forex ku soo biirtay real account ma leedahay faa'iidada khasaarada maxaa ka haysta okay haddii aan ka hadlo su'aashaas haddii aan gudagalo ustadii horto barnaamijkan ani weli inaan gudagalay real accounti lacag kama soo saarin still I remember December ay ahayd adiga iska dheer 2020gii laan bilaabaybo sababta marka ka bacdina waxaaba dhacaba coronavirus iyo waxyaabahaas dhacayo oo sabab ma ay sheegay nasiib uma yeelan inaan furto real accounti laakiin waa waxaan aan naawilayo markastana aan ku tashanahay inaan furto haddii ilaahay yiraaho laakiin lacag badan oo deem ah waan tacbay deemana waa is the way of real sababta waa wadadii aad realka aad ku maareyn lahayd waaye marka meeshaas wax marayo sidii laakiin waa suuqa waan fahansanahay maanta waxaan aaminsanahay in ay sheegay aan wadadii oo macnaha aan haayo oo aan wax badan ay iga bilaaban yihiin maybe experience iyo inay iga dhiman yihiin laakiin hadda maanta cilmigeenan haayo aan aaminsanahay wala maqlamahana deen buu sheegayaa waa isfahan ardayda dhammaantood cod xiriya codka waxaan u furayaa qofka aan su'aasha weydiinayo waa kugu soo laaban doonaa walaal aad baa tahay waxa la yiraahdo waxaan u gudbayaa ardayda kale okay markadkiisa ma siibo waxaan soo qabanayaa xamse ayaan soo qabanayaa xamse ku maqlaya ustad xamsow gudagal waxa la yiraahdo ku aragtaa suuqan goorma ayaa ku soo biirtay maxaase caqabadaha oo ka horiyay ama taqaana waxa la yiraahdo ahaan wallahi forex markasta horta degdeg qofkii ku soo gala way isbartaa forex ama wixii ku horeeyay waa gartay waa sax
wadi maqlaysaan ustaad waa ku maqlaa Xamso degdeg baan ku soo galay aan ku soo galo markii dambe way iskaga bartay forex waa gartay iminka khibrad waan ka dhaxlay barmedia intaan ku jirayna wallahi in badan wax waan ka sii fahmay waxaan kaloon ogaaday forex cilmiga baro kadib ku shaqayso laakiin adiga oo awoodaadii iyo khibradeedii aan midna helin haddii aad ku degdegto waxay noqon doontaa wax hadhow toole ku calaamadsanaada adiga waa sax marka forex iminka wallahi aduu alxamdulilah iminka si fiican xoogaa fahan guud waan ka hayaa forex aan maanta odhan karo de waad wax trade garayn karaysaa hadee waad ku shaqaysan karaysaa ay isleedahay ha okay saan iminka maxaa isleedahay oo mataqaanaa caqabada oo ka hortaagan ama aqoontaada waxa la yiraahdo hoos u dhigi kara oo aad isleedahay way ka maqan yihiin marka la yidhaahdo horta maalin walba cilmigu ma dhammaado marka la leeyahay xaqiiqooyinka jiraad ogaanaysaa moogtay iyo inuu hadalkaasi run yahay forex maalin kasta maalinta ka dambaysa aad ku sii jirto aad dhex joogto waxa kuu sii kordheeya khibrad iyo waayo aragnimo cilmi forex-na waxaan ogsoonahay xaqiiqsanahay qofku uga khibrad badan yahay cabdinaasirow inankaa cabdinaasir cumar mud yara saar adoo mahadsan waa saaray cabdinaasir waxaa kuu sheegayaa walaal youtube-ka ayaa la soo dhigi doonaa qofkii diidan waxa la yiraahdo codkiisa iyo muuqaalkiisu inuu youtube-ka aan la soo dhigin fadlan waxa la yiraahdo ustaad iminka waad maqlaysaan baan jeclay ku maqlayaa Xamso marka forex anuu waxyaalahan ka bartay waxay tahay mar walba oo aad ku sii jirto inaad khibrad iyo waayo aragnimo kala korodho waa sax ayna noqoto iminka mar dhaweed aad waxaad ii sheegaysay berigii hore RSI-ga inaad isticmaali jirtay kadib aad iska daysay waxaad iskaga daysay kuu keenay inaad iska dayso waxay ahayd khibrad iyo waayo aragnimo aad ka heshay waa sax marka wallahi dhalintana waxaan ku waanin lahaa mar walba aanan u sheegaa ciddii maxay hayday aan isleeyahay waxaa ka qaadatay inuuna waxa ka fahanto inay dadaal uunu ka xigo forex iyo inuu waqti siiyo qofkii markaynu wax baranay ama iskuul ama jaamacad wax walbaynu ku jirno waqti gooniya bay lahayd waqti baynu siinaynay keliya tade sidii oo kale oo aad u siiso waxaan cilmi weeyaan cilmi weliba shaqadiisii taagan tahay mar jaamacada dhiganay kadib baynu haddana khibrad laynagu xidhayay sidii aad cilmiga usoo baranaysay baa kana u baranaysaa baan leeyahay dhalinyarada hamoodin waxa weeyaan waa cilmi ha odhanuun banaanada iska yaala oo waqti ma siinayo oo maxay hayday waqtigeyga uma hurayo haddii aanad waqti u hurayn oo aanad waqtigaaga qayb ka mida siinayn waxaan u sheegi lahaa qofkaasi inaanu forex wax guula aanu ka gaadhayn ama de aanu ka warkeenayn iyo siday u socoto iyo siday tahay midna aanu soo fahmi doonin hana noqoto waxani wax kaa go'an oo aad iyo inaad horumar ka samayso aad mar walba niyey rajaynayso qalbigaagana de ay ku xidhan tahay waxaa kaloo u sheegi lahaa dhalinta inay samaystaan timetable waa waxyaalaha ugu fiican ee aad kaga cilmigan aad ku baran karto ama aad maxay hayday suldaan waa ku soo qabanayaa gacan baa ku taagan waa ku arkaa ku soco Xamso ugu dambeyntii Xamso waxa ku weydiin lahaa aad baa u mahadsantahay waxa ku weydiin lahaa dadka forex ka aaminsan forex waa khamaar waa meel la isku dhaco yani maxaa kula talin lahayd horta forex waa shaqo waa ganacsiguna khasaare iyo faa'iido buu leeyahay waxa jira inagu imika waxaynu naqaanaa iminkunba inaga dadkeenu forex maqleen
ha maqlaan dad badan baa lacag lagaga dhacay qofkii marka lagu dhaado dad badan baa lacag lagaga dhacay lacagta yaa ku dhacay qof baa loo dhiibay lacag qofkii loo dhiibay siduu doono lacagtaada ka helaya uu qaadan karaa ninkaashi aad u dhiibtay laakiin haddii cilmigii aad barato adoo aad ku shaqaysanayso wixii aad fahansan tahay waa ganacsiguna khasaare iyo faa'iido labadaba oo loogu yimaadaa oo adiga og ganacsatada soomaalida ee boqolaalka qofa qaar faa'iido qaar khasaara ninka ganacsadaha haddii aad wax weydiiso waraysato in badan oo khasaare uu soo galay oo de laakiin uu kusoo dhaafay waayo aragnimo iyo dee maxay hayday mar walba oo khasaare galana ay uga sii kordhaysay uun inuu qof walba oo khasaare galana waxa uga sii kordhayay waayo aragnimo iyo inaanu mar dambe khasaarahaas aanu ku dhicin taxadirkeed yeesho feejignaanteedna uu helo marka waxaa la yidhaahdaa maxay hayday khasaaraha aad gelayso kolley toole maxay hayday wuxuu u noqdaa uun qofka waayo aragnimo qofkii ku dhiiran inuu waxan ka war keeno oo forex uu ka shaqaysto cilmigeegana barto waa dadaal iyo guushi uun okay xamse aad baa u mahadsan tahay xamse ibraahim wuxuu ka mid yahay ardaydii waxa la yiraahdo bara media muddada ku xirnayd aad baan kuu salaamayaa waa isla soconaynaa waxa la yiraahdo waxaan soo qabanayaa Suudaan ustaad aad baad u mahadsantahay adaa mudan walaal السلام عليكم. وعليكم السلام سلطان. هو كسر معلم. وان كان قاضي كسر دو برا ميديا انت على هالكان كهذين وحن كل شيء مقال كان أما فيديو كان عن دوبي وحن سوق لين دونا هدي الله أود ريدمو برت يوتيوب هدي أنا رأي كان عدكاو إنه يوتيوب كحلي هذا ودح قلب وكجاب سنكرتها. صح سيدا معلومة عادية عدك وحوين معه. أوكي كسر سؤالها ما أنت يا وحي كسر بسيه وحوي أرضي كتيرة channel كا تلجرام كا أما كحران سيدا صحلا وحران كورسوين كان كلا دوين كبحة برا أكاديمية برا ميديا علمي أهان يوم تقانا وحلي راه هيرك إيجوغان أما أقوم طولا خسار إفائدة وحي هيان إيو معناها وحي عقبتها هرتاغن أو مركا تهاي إن لغا عاوية هرتي مع الوضع mahadsantahay anigu groupka Telegram-ka ma ku jiro hadda linkigan arkay gacantana xitaa ay taagan ma arkin waa iska jecel meel kasta galayna gacanta iska taagto kullu wuxuu iska faa'iideys marka ma ku jiro linkigan baa arkay linkigan soo galay kadib gacantana aniga caadi seekaytana iska taagto marka ma ku jiro ustaadeen halka waa sax waxay leedahay bara media iyo bara academy midna ma aqaan ma aqaan waa sax xageena ay soo dirtay marka anigu waxaan ahay dadkan ka shaqaysta baan ahay suuqan ilaa muddo 7 bilood waan ku jiray waasani kama sii badnayn baad ugu yaraan baan soo qaatay 7 bilood meelaha ugu yaraan ma sha Allah ardayda falkoona wana maxaa ardayda la wadaagi karta marka fikir ahaan iyo mataqaana waxa la yiraahdo meesha wax marinaysa ardayda fikir ahaan waxaan la wadaagi karaa hortay waxaan arkay dad badan oo akademiyada leh oo dadka waxyaabo kale oo kala duwan midba gaar wato midba qaacida gaar ah wato tan lagu soo qasaarayo tan lagu soo qasaarayo mid badan la imanayo dhalinyarada waxaan kula talin lahaa hal meel uu wax ka dhigto ama halkan ama meel kale hal meel uu wax ka dhigto sidaan u dabaqin waqtigeedii ka lumin suuqan forex-na wuu balaaran yahay mana laha dadkan waa la qasaaraya sidan baa la noqonaya waxa loo qasaaraya waa sababtuna waa wax kulli adiga ka imanaya haddaad cilmigiisa garanaysa dulqaadkiisa leedahay oo akhlaaqiyadkiisa leedahay waxaan aaminsanahay haddaad qasaartid kulli qasaarada ganacsi qasaar kasta waa leeyahay laakiin inaad qasaaraysid wax yar de qasaar kaaga imanaya wax yar bishii 3 jeer qasaari kartid ama 4 jeer qasaari kartid laakiin inta kala dhan 22 casho kalena 22 casho marka 4 laga jiro 8 iyo 10 casho wadaad faa'iidid 4 waxba ka taris waa sax
markaa waxaan kula talin lahaa hal meelun ku ekaada hal qof mentorship ka dhigta dadka dhalinyarada waxa waalaysa 100 akademiyad bay Soomaalidu furanaysaa mid baa imika yar buu soo baranayaa in yaroo indicators soo xirxidhaya wuxuu oranaya anaa saxdii haya intii buu waalaya 2 bilood 3 bilood meesha ku haysanaya waqtigii baa ka lumaya mid kala soo cararaya xoraya marka structure baa dadka baraya halka isna ku xidhaya marka dadka waxaan oran lahaa hal meelun ku xidhnaada halka qof su'aal alaaliyo su'aasha qabtaan wixii ka sheekaysatiin halka qof weydiiya ayaan waa ku soo qabanayaa ayaan gacanta u taagan okay ku soco marka ugu dambeyntii waxa leedahay ardaydu ha joojiyeen waxa la yiraahdo meelaha kala duwan ee wax ka soo baranayaan ama istiraatiijiyadaha badan ee lagu qalbo ha imika adiga arday kugu xiran baa jirta ardayda kugu xiran laga yaabaa inay meel kale qabtaan oo ay meel kale imika IML kale ku xidhaan qaar kale darwiisho kale ku xidhaan qaar kale hayaan ku xidhaan qaar kale falcon ku xidhaan laga yaabaa halka qof inuu yiraahdo waxaan raadso waxaan baahi u qabo darteed kadib uu 5 akademiyad u galo 5 akademiyad hal mid la mid ah mirto 5 waa kala kaan waa sax marka cilmigan uu ballaaran yahay qofkan ku soo bandhigayo kale waa qof ku soo guuleystay waa qof wax ka soo guula ka soo hooyo weeyaan marka inta guulaha ka soo hooyay adiguna guul ka sii hooy laakiin waxyaabo kale hadda ku daba xidhid waa ayaan aniga waxyaabihii aniga iga hor yimid ahaa waayo anigu 3 akademiyad waan hamar wada galay waa sax markii aan arkay waxaan in yari dul qaado ustaad okay suldaan aan kugu soo noqono waxaan soo qabanayaa ayaan waxa la yiraahdo waqti dheer ayaynu ku jireynaa waxa la yiraahdo wixii inta ka dambeeyana waxaynu aadi doonaa waxyaabaha ay tahay ardayda in laga caawiyo ama qaladaadka ay galaan waxaas ayaan isla fiirin doonaa haddii inoo suurto gashana waxaan raacin doonaa istiraatiijiyadii ugu dambeysay koorsadeenaan oo aan doonayay inaan ku soo afjaro dhammaan koorsooyinka baxa bara media iyo bara academy ardaydana ay noqdaan waxa la yiraahdo kuwa qalin jabiyay oo istiraatiijiyadii ugu dambeysay ay ku tiraagarayn lahaayeen iyo wixii hore ay soo barteen aan la wadaago maanta marka waxaan soo qabanayaa hadda ayaan suldaan aad baan kuu salaamayaa aad baad u mahadsan tahay waana kugu soo noqon doonaa haye wala qadam qadam ayaan may maqashaa ها ولا ها وك مقلان waa la socotaa aan filayaa waxa la yiraahdo wixii aan ku wada hadlaynay iyo mataqaana waxa la yiraahdo dadkii markii hore soo galay ayaa ahayd marka ku soco ها si fiican walaal horta xogaa baan ku jiraa telegramka groupka ma garatay waa gartay goorma ayaa farqsi bilowday xagee ayaad wax marinaysaa real accountigii ma furatay caqabadaha ku hortaagan maxay yihiin ardayda la wadaagi karto waxyaabahaas ayaa muhiim u ah ardayda inay ogaadaan ها adiga sanadkan hadda april markii dhamaado may aan bilaabo ma garatay april last year ma garatay waa sax weli adigu waxa waaye marka badanaa marka qofku ku cusub yahayna waa youtube oo kale aan ka daawan jiray oo cashiro waxaad arkay qof walba midba macallin wuxuu iska soo dhigay ma garatay qof walba youtube uu leeyahay waxuu soo duubay nin walbana wuxuu ka hadlayaa gooniya uu leeyahay tan waa the best tana ugu fiican okay waa gartay annagana waxa waaye wixii lagu dhaho tana ugu fiican waa ku ordaynaa ma garatay waa fahmay marka adiga dhowr meel aan marka hore aad wax uga daawan jiray ku xirnaan jiray markii dambe aan telegram ka helay bara academy bara may maqashaa ayaan ها تليفون baa isoo dhex galay ma maqlaysaa waan ku maqlaa ku soco walaal marka horta waa weli waxaan dareemayaa kulley marka hore waxaan daawan jiray elite waveski waxyaabahaas iyo inaan xoog saaro barto markii dambe haddana market structure baan xoogaa iyo cashiro ka daawaday oo dhageystay haddana inaan barto isku day ma garatay marba waxbaan isku dayay inaan sameeyo horto waa gartay marka mid inaan waayo mid aan kula soconaan waayo ma garatay waa gartay weli waxaan dareemayaa macnaha dadka
badanaana waxaa maqan wax la Soomaali dadku ma hagar baxaan oo macallimiinta Soomaalida inay wax aad waxaan baraan oo qof walba karo dadka inuu maaragtay si ay dhageystaan oo iska hayo in daa cilmigan sirtiisa lama soo bandhigin iyo waxyaabo badan waa dhaga ka maqleenaayo qof walba wuxuu leeyahay xataa qofka hadduu wuxuu ku barayo ama aaminaysa waxyaabo badan psychology ama qash waa gartay hadda macallin dhahayo waxba idin barayo wax qof walba niyad geliso ninkan ama wax idin barayn macnaha wax sirta oo muhiimka ah oo qarsanayo qof walba shaki baa qalbiga galay ma garatay hadda intaan bartay oo maasha Allah horta aad baan uga faa'iiday YouTube-ka kale aad aan la socday casharo badan oo aad meesha ku jiraan aad u daawaday basically aad u fahmay qaabka nidaamka soo ku socdo laakiin wali waa waxba dareemay inay maqan yihiin ma garatay caqabadaha ugu weyn oo haystana waxa waaye inaan istiraatiijiyooyin aan midba mid inta fiiriyo aan aamin waayo ma garatay oo aan mar mid sameeyo aan aad ugu dhibaatoodo ma garatay waan fahmay real account ma furatay waxa la yiraahdo ha real waan furay laakiin se wali waxba natiijo wali kama hayo waa gartay istiraatiijiyada ayaa isleedahay marka way ku shaqeysay istiraatiijiyadii janalada badan iyo waxa la yiraahdo bara media bara academy iyo meelaha kale ka soo baratay maxaa kula talinaysaa ardayda wallahi ani wax hadda oo aan ka hayo natiijo fiican oo positive horta ma jiro ma garatay market structure-kana waan fiiriyay oo waan bartay bara media-na hadda inta badan waxa ku jiro falaagidii waxa soo qarka qayb ka mid ah laakiin inta badan waxay ka hadlaysaa waveski iyo boosejadii supply-gi soonki waxyaabahaas ka hadlaysaa ayadana waa arkay ma garatay horta qaybahaas intaas markii aan fahmay xaga u sii dhaqaajo waa ma garatay casharada in dhameystirnayna oo maleynaya waxba dhina ma garatay xagan kale oo market structure-kana asaga wallahi waa isaynaa wali wax saas kama hayo marka ardayda waxaan kula talin horta waxa fiican sidoo wiilka hore sheegay qofku inuu hal meel ku xirnaado oo ka dhageysto bal waxay u noqotay horta way fiican tahay ma garatay hal meel ku xirnaado wax ka barto ما مقشة أيام قف لكن مركو بلوي وح بلاواي waxa waaye ma hal meel waxa ku maqlaa hal qofku markuu bilowyo hayna basic yahay uu bilaabayna waxa waaye meeshii wax lagu sheegay kana dil dhow meeshan cashira ku jiro hore ka daawanayaan uu marka hore wax la taliyay iyo meel wax uu salahayn okay aad baa u mahadsan tahay ayaanay waxaan hadalkaaga ka fahmay ilaa iyo hadda inaa ma taqaanaa ku jirtid back testing oo tijaabooyin badan aad sameynaysid istiraatiijiyadii iyo wixii aad baratayna wali ay ku shaqeyn la yihiin marka waxa la yiraahdo waxaan kugula talinayaa casharada ku jira channelka inaad si wanaagsan u soo qaadato horta mid ayaa saxa oo xaqiiq ah oo aad qofkan weydiin doonin macallin kasta oo tagto wuxuu ku siinayaa advertise ayuu ku siinayaa يعني وكوحي سينيا فيديو قرح بدنا يوصل دوبيا قالها هذا مسلم هذا الصومالي هذا ديارات طفولة يا دبا قرح بدن يعني يصير بدن كليو حقيقة هيكون مش كذا بقطع شو أحسن يا حبيبي يرتاي استراتيجية 95% وراها 95 أم 99 أم 100% مركب وحاسلة بس وقتنا دايش ومالك برسنة سوق ها ويرتاي معلن حقيقة كل شيء أنا هشوا Soomaalida hadii noo soo laabano Soomaalida macallimiin wax laga barto oo wanaagsan way jiraan kuwa waxa la yiraahdo yaani danaynaya lacagta yar ay qofka ka qaadanayaan oo xaysiis ka gadana way jiraan marka waxa la yiraahdo halkan maanta waxaan ku soo afjarayaa koorsadii muddada dheer inoo socotay waxaan inala wadaagi doonaa istiraatiijiyadii yaani aku dabaqi lahaydeen waxyaabahan inay ka qaldan ardayda ilaa iyo 100 su'aalood ayaa soo gaaray oo ku saabsan sidee ayaa loo isticmaalaa train line-ka macallin sidee ayaa loo isticmaalaa train line-ka marka waxaan ogaaday oo halka iga soo dhex baxay ardaydu inaysan aqoon intooda badan Soomaalida channelskeedana aan si wanaagsan loo kala dhigdhigin sida channelka loo isticmaalo train line-ka marka
استراتيجيادهeenni ayaynu waxay ku dabaqi doonaa trendline taasina waxay noqon doontaa waxa la yiraahdo استراتيجيادeenni u dhameysay ee forex marka waxaan kugula talinayaa استراتيجيadaas aan soo dhigi doono waxa la yiraahdo bare media maanta ama berri haddii Allah awood leeyahay inaan si fiican u qaato 5 jeer ku soo celiso inta wixii ka dambeeya uma baahnid indicator uma baahnid waxa la yiraahdo xitaa uma baahnid waxa la yiraahdo moving average RSI waxa soo dhan indicatorka muhiimka xitaa uma baahnid waxa isla isticmaalaysaa trendline-kii iyo istiraatiijiyadii aynu soo barnay waxaana jira wax la yiraahdo trendline strategy waana inoo soo wadaa ka hor dhici meeno waxaan soo dhigi doonaa bare media marka market strategy ma trendline-kii waa market structure waa sax marka صح okay qabanaya aad baan ku salaamaya ayaanay ugu dambeyntii maxaa ardayda kula talin lahayd waxaan kula talin lahaa horta waxaan waa cilmi la baranayo oo anaga markii waxaan cilmiga caadiga ah dadku waa aragtay iskuul la soo dhigtaa dugsiga laga soo bilaabaa dugsiga hoose dhexe sare ilaa jaamacad afar sano laga yaabaa muddo 16 sano inay ku qaadato inaad wax baratid si macnaha hadhow shaqaale u noqotid ma garatid ama ka badanba ilaa master aad u diyaarisid ma garatid hadhowna aad shaqo raadisid dina aad shaqaale noqotid ma garatid marka waxaan kula talin lahaa waqti hala geliyo yaa la degdegin qofka 4 iyo 3 iyo 5 iyo 6 markuu ku jiro niyad jabin oo waxaan ma baran kartid wax ka badan aan soo baranay muddo ka badan iyo waqti ka badan oo ku bixinayno wax waliba ka aan dareemayno inay ka nacfiiriin ma garateen marka inaan waqti iyo dadaal gelino qof walba waxa ugu fiican dadaalkiisa waqtigiisa uu geliyo meel hadduu helo uu fahmi karana uu aad meeshaas ugu adkaysto ilaa uu ka gaaro waa gartay si wanaagsan aad baan ku salaamayaa ayaanay waxaan soo qabanayaa arday kale aniga soo waana isu soo noqon doonaa haddii mataqaanaa waqtigu uu noo saamaxo ayuu laalmaatin ku soco walaal مسعود محمد مسعود محمود ما يمغش هاوكم خلاص تيتشر ادي ما سنتهي واحد سؤال شو ودينا معناها تمتقن ها صح imko kale ardayda sida in badan ka soo helisay ardayda badankooda waxa ku adag trade line-kiisa loo dhiganay waa gartay mid kale xataa waxa jirto waxyaabo lacagaha maaragtay euro NCD iyo AUD iyo lacagahaas oo kaliya maaragtay ha ay dadku badankoodu waxay leeyihiin falanqeyn laakiin waxaan arkay arday kale oo lacaga oo intee oo in yaro in kale hadii dhaqaaqan 10 mirir oo boodiya maxay meelaha 3,000 oo ka badan xitaa waa gartay oo aan yaabod aan sida lacagaha ku gal marka lacagahaas ayaan fahmay meelaha lacag yihiin kuma laakiin eurada iyo GBP-ga iyo marmarin dhaqaaqa ma laga yaabaa laakiin ma dhaqaaqan koon badanku lacagahe ayaa marka ka hadlaysaa oo lacagaha sayd u dhaqaaqa waxa weeye to ay qora Bitcoin ka kale Bitcoin anigu kama tareegareeyo walaal waxaan ka tareegareeyaa 24 waxa la yiraahdo lacagood dahabka iyo oilka ayaan ku darsadaa marka ardayda waxaan kula talinayaa inay dahabka oilka iyo waxyaabahaas kale ay ka trade gareyn inta ay cusub yihiin sababtoo ah dhaqaaqoodu waa dhaqaaq fowq al-aqliya bibiskoodana sida lacagahan kale loo xisaabiyo looma xisaabiyo marka ardaygii haddii ardaygu markuu cusub yahay khasaarihiisa ayaa badan faa'iidadiisu ma badna sababtoo waxbarasho ayuu ku jiraa tijaabo ayuu ku jiraa qof aan forex inta badan qof aan forex lacag ku khasaarinna ma barto arday kasta real account furtan markuu cusub yahay khasaaro ayuu galaa lacagta ugu jirta kala barha khasaaro haduu doono kan ugu yar waxa laga yaabaa inuu lacagta ugu jirta kala bar khasaaro xaqiiqada ayaa taasa waa markii aad waxa la yiraahdo yani aadan akademiyad ku xirnayn tusaale ahaan shirkad oo kale ay gacanta kugu hayn laakiin markii aad tahay arday meelo kala duwan wax ka soo baranaya YouTube mataqaanaa website meel lacag ku bixiyay marka real account aad la timaado
xaqiiq waxa ina khasaaro badan galaysid marka lots maxaa ku badbaadi kartaa lots yar iyo lacagaha goldiga US oilka waxyaabaha inaadan ka tiri karin صح واسوي نكسمع لكن سؤال بان قبا ما تخان وسودا هل كان سؤال waxa weeye macal waxa marmar iga qaldama trade line ka sidii loo dhiganayay waynu ka hadlaynaa train line-ka waxa la yiraahdo ardaydii igu soo weydiisay Telegram-ka iyo WhatsApp-ka ayaa kamid ahayd ayaan filayaa arday badan ayaa i soo weydiisay xaqiiqadiina waxaan xaqiijiyay ardaydu istiraatiijiyad kasto aan la wadaago inaysan garanayn train line-ka sida loo isticmaalo taas ayaa kalifaysa marka ardaydu inaysan istiraatiijiyadii u saxmanayn suuqeena uu ku weerayo ha midaas cilad baa qofku falanqeyntiisu saxanaya laakiin waxa ka qaldan trading markuu ka qaldan yahayna suuqii baa ka qaldamaya waa sax weynu waxa la yiraahdo 10 dhameystiran ayaan ka soo diyaarinayaa maanta ama biri ugu dambeyn ayaad waxa ka daawan doontaa ها ان شاء الله ان شاء الله سؤال ميا جرا استاذ ادي هذا كل سلامي وكاقال الليمانو والليمان ميكا الى الله يا سما asiga waay miskiinkii yaraa waay marka ustaad waxa ku weydiinay isbuucan soo soco waxa waay jaansiyo qurux badan maaragtay suuq soo wajahan dadka market strategy-ka maaragtay ku tiradigareeyo marka jaanisiyadoo kale adiga saddexdoo lacag iyo labadoo lacag oo maaragtay u jaaniska fiican oo adiga isleedahay lacagahaas maaragtay dhaqaaqooda aad u wanaagsanaanayaan mana la wadaagi kartaa waa fiirinaynaa walaal waana in la wadaagayaa ardayda ayaan qorshahan u soo galay meesha wuxuu ahaa inaan ogaado ciladaha ardayda haysta si aan maadaama koorsada u soo dhammaystirayo inaan ogaado ardayda ciladaha haysta kadibna aan ka xalin ardayda in badan ayaa mataqaanaa ciladooda ugu badan waxay ahayd sida real account loo furtaa waan xaliyey Telegram-ka ko waxa jira Zoom ahaan aan kaligood shakhsi macnaha shakhsi aan Zoom-ka ugu galay oo waxa la yiraahdo caqabadaha haysta ka xaliyey waxa la yiraahdo real account la furay marka taas halka iga dhig wixii real account waxaan u furnaa si private ah wax lacag laga qaadi maayo luuqa igala soo xiriir broker-ka rabto waa isla fiirinaynaa waa kula furaya laakiin waxaan ka hadlaynaa taxliilinta suuqa iyo istiraatiijiyadaha maxaa ina ka qaldan maxay si tahay caqabadaha ku hortaagan oo isleedahay laga caawiyo waxyaabahaas ayaan ardayda mataqaanaa ka wareysanayay marka su'aashan taxliilinta suuqa way ugu dambaysiin doontaa haddii waqti u helno ardayda kale ayaan jaanis siinaya su'aal kale oo qabto miya jira liinaano may ustaad okay liimaan waa aad baan ku salaamayaa waxaan soo qabanayaa qof kale qofkii doonayay inaan soo qabto gacanta ha soo taago waxaan soo qabanayaa injineer maxamed ayaan soo qabanayaa